السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي ألوان سلام ميلو بأدوك جوكتان كسو دوada يوتيوب كان channel kan YouTube كلنا جيت ميديا barnaamijkan qodobada maanta barnaamijkan ku soo qaadanayno waxa weeye xaalad 20 dhalinyaro oo lagu xiray dalka Masar iyo faahfaahin arrinta ka soo baxaysa iyo feeriyaanka caanka ah ee Floyd Mayweather oo saartay aaska ninka qarashka ku baxaysa aaska ninkii la dilay George Floyd. ku dhawaad 20 tahriibayaal oo Soomaali ah oo kuwaas oo dhamaantood dhalinyaro ah ayaa waxaa lagu qabtay xuduudda Masar ee la wadaagto Liibiya kuwaas oo rabay inay si sharci darro ah ku galaan dalkaasi. tahriibayaasha Soomaaliya ayaa gaaray 19 ruux ayaa markii hore waxaas ay si sharci darro uga tageen dalka Suudaan waxaana iyaga oo muqaalisiin la socoto gacanta ku dhigay ciidamada ilaalada xuduudda ee dalka Masar. Maxamed Aadan Gaas oo kamid ahaa Soomaalida ku nool Masar ayaa sheegay in lagu xiray dhalinyaradaas oo dhamaantood rag ah saldhigga ciidamada amniga ee ku leeyihiin gobolka Aswan ee dalkaas Masar isla markaana xaaladooda ay tahay mid wanaagsan. sidoo kale waxa uu hadalkaas intaas ku daray in Soomaalida ku nool dalkaas Masar iyo safaaradda Soomaaliya ee dalkaas ay ka gaabiyeen inay dadaal ka bixiyaan sidii loo sii deyn lahaa dhalinyaradaas. qofka labaadna barnaamijka maanta waxa ku soo qaadanayna feeriyaanka madowga ah ee Floyd Mayweather oo saartay madaxa qarashka ku baxaya ninkii la dilay ku baxay gacanta booliska George Floyd. ninkan ayaa wuxuu yahay madow Black African American kamid yahay feeriyaanka caanka Floyd Mayweather oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa balan qaaday lacagta ku baxaysa askarta George Floyd sida ay aaska ku baxaysa aaska George Floyd. Mayweather ayaa wargeyska Hollywood Unlocked ku sheegay inuu la xiriiray qoyska Floyd si uu u taageero uu muujiyo. Mayweather ayaa barta Twitter ka fariintaas ku shaaciyay isagoo sheegay inay ka go'an tahay inuu bixiyo kharashka lacagta George Floyd. madaxa dhanka xaysiinta ee shirkadda Mayweather ayaa wuxuu sheegay ESPN ku yiri xaqiiqda Mayweather way ka go'an tahay inay bixiyo kharashka ku baxaya. ninkan feeriyaanka ayaa wuxuu ka fariistay 2 sano ka hor kadib uu ku soo laabtay si uu la dagaalamo feeriyaanka la dhaho reer Ireland Conor McGregor. feeriyaankan ayaa dagaalka feerka wuxuu ku sameeyay ku dhawaad 100 milyan oo lacag ah ayuu ka sameeyay feerkaas. intaas maanta barnaamijkeena koowaad ku soo qaadanay wixii barnaamijka labaadna waa arki doonaa. aad iyo aad ayagu maasantahay daawashada fiidiyogan daawatay